horta dembi dhaafku waa maxay dembi dhaaf maxaa la yiraahdaa culimada qaar waxay u haystaan dembi dhaafku inuu yahay kiyo dembigaagu waraaqdaadii ku yaala on malaa'ig malaga yeedhinaya waraaqda ama akhriyaya inuuna arkayn kiiskan waxay ku leeyihiin kiisku ku qoran yahay uuni laakiin malagii yeedhinayay un baan arkayn ilaahay ka indhasaabaya ragga qaar baa see ka aaminsan dembi dhaafka ragga qaarna waxay leeyihiin warmaya inuu ilaahay wax tirtiro qur'aankayba ku jirtaayo yamxu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab inuu ilaahay wax tirtiro qur'aankaaba sheegay marka kiiska laga dhaafayo waraaqdaba waa laga tirtiraa diiwaanadaba waa laga tirtiraa bay ragga qaar koodna qabaan waxaynu leenahay haddaan doonayno inuu ilaahay dembigeena dhaafo ama ha laga tirtiro ama malaa'igta ha laga indhaqabtee haddaynu doonayno in dembigeena la dhaafo oo ilaahay uu ina cafiyo aynu weysadana wanaajinno salaada uu rasuulku inoo sheegayna aynu ku tukanno waana qodobkeena shanaad xubnaha aynu ka weysaysano ayaa maalinta qiyaamada inoo iftiimi doona haddaad doonayso mugdiga qiyaamada iyo madowga jidka siraad ilaahay inuu ilays kuu sameeyo kuu baxa weysayso oo weysada dhammaystiro xubnahaaganuu ilaahay ilayskaaga dhigaya xubnahaagan baa kuu nuuri doona حديثكي إمام مسلم أوريي نبي محمد محوكلها وحديث أبي هريرة وحلها إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أمتي إذا ما أنت قيامة وي إيمان إساقو وجه وبرير لي هاي ودلالي حبنه وقنا أي قريه هنا النور أيان رسولك وحكم لي نورك ومن آثار الوضوء رسولك من آثار الوضوء وراتك ويسده انتي أتكوي سيسني سيباكو نور إيسا أو كو دلالي إيسا هداد نور دون إيسو وحلق ليه ويسد إلالي ربي مركو كورهم يجدك سراد محولها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حق بذح ذا اللي مش يجين ميدك توي افتيم إيسا حق هرنا وي افتيم إيسا بذح ذا جهنم أيا حكتا افتين كاسوا كي ويسد ويا منافقين تو محي أورنا يا داد كي مرنا ويسيسن شري مرنا ويسد كتجي شري مرنا افتيم بي هلا مرنا مدو وابك أوجحهم بوي مركو روبكو في الله عيو ضيحنا ونشرين عركنا ودرور ليه هاي وامرك هو خطر تبادن تاعي وعمركو دا إنها هو كانت تجيا كان markuu waciyay hadana dam yiraah damtaas ayaa ka xun ibmadowgii markuu hore aad ku jirtay nuur baad aragtay nuurkiina waa ka bax munaafiqiintu marna iftiin bay heli marna waa ka baxtiyaya maxay oranayaan markaas sidoo rabbi aayada quraanka uu ku sheegayay waxay oranayaan unzuruna naqtabis min nuurikum warbalna la suga ilayskiinan anu idin la iftiinsanee jidka siraad anu ku dhaafnee balna suga maxaa loogu jawaabaya qiil irji'u waraakum faltamisu nuura adduunyadii u laabto iftiinka ka soo qaata baa la oranaya xiwaarkaasi markuu dhex maro faduriba baynahum bisuur gidaar baa la kala dhex dhigaya halkaas ay ku hadheen munaafiqiintii iyo gaaladii walaalayaal haddaynu doonayno ilays haddaynu doonayno nuur haddaynu doonayno xubnaheena inuu ilaahay inoo kaahiyo maalinta qiyaamada iyo jidka siraad aynu weysada ilaalino oon ku dadaalno abi hurayre ayaa nabi maxamed ka wariyay inuu rasuulku yidhi alaa adullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhadaaya wayarfacu bihi darajaat xadiidkani wuxuu tilmaamaya waa maxwu alkhadaaya wa rafcu darajaat waa laba arrimood way isbarkan yihiin haddaad doonayso dembigaaga in la masaxo darajadaadana in kor loo qaado وفائدة التضباط والله قضب إسبركن حديث كن ميت كمية هرين أصامرنا ومحو الخطايا قضب هرين كصامرنا لكن قضب كنت الضباط وحنو سؤال بعلني رفع الدرجات مع الصعدة هدين دون إن إلهي إنه دنوبتين قد عفو درجة إننا أكر إنه قاضو أي ويسد إلى لنا ولبن حلق قبوبها مركي دحنتو جرتو إيه قبوق أوتشرو إيه بستاه هوستي سلقا صوت هوسا إيه قفك أقرقريو أما أضي وايلون أتكيسن كريم بأويهي مركا هداد ويسد سدقن ما يسترن وإلهي رالنما كجربها هداد ويسيستو لماذا أجربة هليسا وأنا حديث أبي هريرة وإمام مسلم صحيح سكوساري رسولك وحي لكي وصحابة الله الله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ورميد تصيا وحيلهي جففكين أوكل عفيو ويرفع به درجوين كين رؤوسري قاضيو قالوا بلى يا رسول الله وحيلهي ها إلهي رسولك سيون تصي ورسولك يري صلوات ربي وسلامه عليه إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد صلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم في صحيحه وويسد الله لما يستره حلق مكاره أي جرت قبوغ إيو رحمت إيو بيه برفوبي وكثرة الخطى إلى المساجد ومساجد أي نحوق وقطلاب صنو أما أي نقبض إنه سعود كيغا وانتظار الصلاة بعد صلاة وصلاة مركاتكتو إلى صلاة كلكو قارد استراحة فذلكم الرباط من كاسي دفيس أيو فرديا ummadda muslimiinta in dhufays u fadhiya oo cadawga ka difaacayo oo kale ayu xisaaban yahay buu rasuulku yiri dambiyadaynu galay ayaa jidhkeena xataa cidida hoosteeda ka baxaysa buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam
wasallam ciddida hoosteeda oo talow ciddiyaha maxaa loo soo qaatay ma dembi gaar ah oo ciddiyaha gala ayaa jira ciddiyaha maxaa loo soo qaatay waxyaabaha la doonayo waxa weeye ciddida waxa laga yaabaa inaad kiisas ku gashood wax ku xagato waa dhici karta waayo ninkaad xagato aad xangaruufato ama aad xagato ama aad deeqan jiiriso saw ma ogid inuu diinta wax kugu leeyahay eeg maxkamad aakhire ku sugaysaa way jirtaa islaamkeenu ma ogola in dadka indhaha xataa indhaha aad ku gubta lama ogola si xanuun aad u eegta lama ogola inaad taabasho una raalli ka ayn kula timaada lama ogola islaamkeenu ma ogola waa diin naxariiseed wey kaad xagato maxkamad adduunka iyo mid aakhire labaduba way jiraan ta adduunka ah xukuumo wax la yidhaahday fuqahadu sheegeen in lagaa rabo xukuumo haddaad yara xagato ood in yar usaadiirka usaatira dee bilaash la diri maayo xukuuma la diri kolkoob shaha loo shubo wuxuu waa in qofkaa la siiyo aakhire waxa kaa horeeya ilaahay ma ogola qof beri ah in la dhibo wixii mu'min naxdin iyo warwar ku abuuraa waa musiibo ilaahay qowlkiisa maxaad u jebisay ilaahay qowlkiisa tusaalahaan qofka qof dila 3 maxkamadood baa sugaya kala dilay gaar buu u maxkamadaysan ilaa dhiigiisii uu daadiyay ehelkii uu ka dhintay gaar bay u maxkamadaysanayaan ilaa agoon iyo caruur iyo ehel iyo qaraabo iyo waalid jilicsan buu ka tagay waalidka xidhiidh buu la lahaa maxkamad gaaray waalidka iyo qaraabadu leeyihiin ayaa iyaduna jirta ilaahayna gaar buu u maxkamadaysan ilaa waxa dilin baa ayuu yiri oo hadalkiisii buu fudaysaday ilaahay baa la maxaa hadalkayga u fudaysatay 3 maxkamadood ayaa qofka qaatilka ayaa u yaala qaatilka kii la dilay iyo qaraabadii cid laga dilay iyo ilaahay oo qowlkiisii la fudaysaday waa 3 kiis haddii kolkaa magad bixiso dee magtani 3 maxkamadood mid kamid ay kaa awdaysaa magta yaa qaadanaya ma ilaahay baa qaadanaya maya hadama kii la dilay baa qaadanaya maya yaa magta qaadanaya dee qaraabadii kiiskii ma qaraabada kaa xidhmay laakiin labadii kiis ee kale way ku sugayaan kiiskii ilaahay iyo kiiskii qatiilka labaduba way ku sugayaan ilaahay baynu ka barinay ilaahay inuu gacmihiina ka badbaadiyo dhiig islaam si toosa iyo si dadbanba dunuubta ayaa ka baxaysa xataa cidiyaha hoostooda marka aynu weysaysaneen weysada ilaashano rasuulkeenu wuxuu yiri xadiiska imaamu muslim uu warinayo man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khataayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi wuxuu rasuulku leeyahay ninku hadduu weysaysto oo weysada uu wanaajiyo dembiyadiisii oo dhan ayaa ka baxaya jidhkiisa ilaa cidida hoosteeda kuwii ku sugnaana dhaho kuwii halkaa ku gabanayeyna dhaho way ka baxayaan buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam haddaynu jecel lahay inuu ilaahay ina mayro inuu ilaahay ina cafiyo inuu ilaahay xaashi cusub inoo furo inuu ilaahay maalintii hooyada ay ku dhashay oo kale uu kaa dhigo in xagga alla cara iyo dembi iyo cuquubiya kiisba unu kaaga maqnaanin weysadana wanaaji ogowna sunnadeenu siday inoogu dhiirigelisay wuxuu rasuulku ku tilmaamay idaa tawada'a alcabdu almuslim aw almu'min adoonka muslimka ama mu'minkii markuu weysaysto faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bi'ayn ma'a alma xadiiskani wuxuu ka hadlayaa waa dembi dhaaf uu sheegayaa laakiin dembi dhaafkii buu tafsiil inoo geliyay soo xadiiska hore ma aha jidhka oo dhan buu dembigu ka baxaya cidiyaha hoosteedana ha ahaatee xadiiskani wuxuu sheegayaa biyaha wajiga ku maydhay inuu dembigu la baxayo dembigii wajigu biyaha gacmaha ku maydhay inuu dembigii gacmaha aad ku qabatay uu ka la baxayo biyaha madaxa ku masaxday inuu dembigii madaxa ileen fikir baa madaxa ku jiro waad fikirtaaye kiisasad u fikirtay baa jira iyo sharqoole aad maleegtay baa dhici kare inuu ka raacayo lugaha markaad maydho biyaha lugaha ka dareeraya ayuu dembigii lugaha aad ugu talaabsatay xubin ayuu qofka dembiga uga baxaa baa la yiraahdaa xubin ayuu dembiga uga baxaa